wafdi ballaaran oo hogaaminayo barasaabka gobolka Sanaag iyo saraakiisha sare oo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa habeenkii xalay soo gaaray degmada Galbeed ee galbeedka gobolka Sanaag. madaxdan oo baryahanba ka shaqeynaya nabadeynta laba beelood oo degmada Ceelafweyn sidoo kale waxay kulmeer ku soo mareen tuulooyinka Sancaro iyo Ceel Helay iyagoo dhinaca kalena u kulgalay xaaladda saldhigyada asluubta iyo booliska xarunta caafimaad degmada Galbeed iyo hadallo dardaaran oo u jeediyeen tiro dhan 300 oo arday oo saaka u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ah ay ka bilaabmay dalka oo dhan saaka waxaana ugu horeyn halkaa ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay iyo taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland Maxamed Cabdi Cabdulle Fan taliyaha ciidanka badda Garaad Xasan Yuusuf waxaana hadalladii ka mid ahaa waan nabadeyntii nabadi way jirtaa ilaahay wax loogu mahadnaqo weeye aad iyo aad baan dadweynaha ugu mahadnaqaynaa wixii la dhacay dhamaystirkoodii iyo xoojinta nabadgelyada ayuun baanu u maraynaa meelaha kan waxaanu leenahay dhammaanba dadka reer Sanaag meel ay joogaanba degmo Galbeed degmo Ceergaabo iyo degmo Ceelafweynba dhammaantiinba nagala qayb qaata si horeba wada qayb qaadanayseen nabadeynta cid aanu isu daba taagayno xoojinta nabadgelyada iyo fulinta go'aamadii hore ee dawladda ay u soo saartay iyo kuwii weli aan wax laga gaarin oo iyagana aanu bilownay cid aan isu daba taagaynaa ma jirto nabadda iyo helitaankeeda dadweynuhuna waa taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhiggan labada wax leenahay bal iyo wax badan baa qabateen ciidamadana waa ku dayanaynaa dhammaanteedna ku dayashaan leenahay waan idin hambalyeynayna baan leenahay waxaan ku darayaa annagu saldhigga kan ama xabsi kan garadag wuxuu wax ka taray nabadgelyada gobolka oo dhan dalkooba ma annaga gobolkan haddaan reer Sanaag nahay sida wax nooga tago kuwa talo bere buu noo yahay laba jeer baan xabis ku soo raray halkan anigu marka waxa leeyahay nabadgelyada wax badan bay ka qabteen raacdiga waan garanay inta lagu soo galo wada ragida waa soo xiriyay markii soo xiriyay warahmatullahi wabarakatuh salaam kadib runtii waan ku faraxsanahay inaanu garadag dhibaadno oo meel caan oo Soomaaliland ka caan waan ku faraxsanahay nabadgelyo aanu ku nimi hawl baanu nabadayna baanu wadnay soo dhaweyntii aan noo sameeyeen iyo sooriyadii iyo hurda macaankii iyo waxaanu helay aad baan idinka mahadcelinaa runtii taliyaha rugcadaaga ah ee xabsiyada ee gobolka Sanaag halkana tusay wixii uu qabtayna garada qura maaha Ceergaabo ognahay Ceelafweyn baan ognahay halka waanu aragnay aad baan kaaga mahadcelinaa dhinaca kale waxaa ka warbixiyay xaaladda degmada Jibxaaqal Cabdirashiid Maxamed Cabdicaal taliyaha qaybta asluubta Maxamed Digaale kabtan Xaaji Xuseen Yuusuf waxaana ka mid ahaa hadaladoodii sida tan dhammaan aad baan idin salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh saada kadib gudoomiye iyo madaxa sharafta leh waxaan idin sheegayaa sheelkan garadaga aragtee sheel UNDP ma dhisin hay'ad kale lama dhisin dawlad kale lama dhisin waxa dhisay kaasala sare Maxamed Digaale Saciid baa dhisay waa maskaxdiisii idinka asluubta jarankooda waa ka warbixiyey waa in waxa qaladkooda lagu qiimeeyaa oo lagu dalacsiiyaa oo rikoorka loo geliyaa waxaa dhammaan bulshaweynta reer Sanaag ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadeynta sheegayna inay gacan bir ah ku qaban doonaan wixii dambe ee shaqaqo ka dhex abuuran labada beelood ee degmada Ceelafweyn taliyaha ciidanka badda Garaad Xasan Yuusuf wuxuuna yiri محمد آدم ستار TV